تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، إلهي تبارك وتعالى بأن توفيق ويجدي سننا مركة هراء marka labaadna mowduuca muxaadaradu sida loo sheegay weeye almutaajara fi alcumulaat binidaam alhaamish ama binidaam ama cabra alforex kolba kaad tidhaahdaba. sababta keentay in muxaadaradan aan qabanno waxa weeye waxaan ku jirnaa xilli loo yaqaano alcawlama aliqtisaadiya ama dhaqaalihii adduunka in la caalamiyeeyo oo hal meel lagu ururiyo. arrintaa waxaa ka dhalanaysa maadaama caalamkan maanta jooga dhaqaalihiisa inta badan gaaladu maamusho mucaamalaad fara badan oo muxaram ah yaa maalin walba inoo imaanaya shareecada khilaafsan. mucaamalaad cusub baan maqlaynaa, kolbaa wax cusubbaa suuqa soo gelaya. waxaa laga yaabaa in badanoo ka mida innaga inagu cusub yihiin, laakiin 20 sano ka hor bay culimmadu ka hadleen. wakhti dheer baa la daaweynaya laga hadlaayay. innaguse waxaan moodaa inayn maadaama caalamkaba aan ka dambaynay wax badanina hadda indhaha ku kala qaadayna aad moodaa. haddaad xusuusataan waa dhoweyd waa anagii ka hadalay masale la yidhaahdo lacagta la yidhaahdo bitcoin-ka, iyadoo buuq badan iyo waa bannaan tahay iyo lagu hayo anagii ka hadalay. waxyaalihii aan ku sheegnay waxaa ka mida mukhaataradeeda badan oo halis bay gelinaysaa dadka xoolahooda maadaama aynan jirin jiha rasmi ah oo lacagta noocaasa samaysa ama ilaashata ama muxuu ahay damaanad bixisa. midaal haddaan idin siiyo, maalinkan ka hadlayay bitcoin-ka halkii bitcoin wuxuu joogay dhowr iyo 10,000 oo dollar. mar wuxuu gaadhay halkii bitcoin 19,000 oo dollar buu gaadhay halkii bitcoin, lacagta raqamiga ama electroniga ah. maanta oo waqti ka soo wareegay markaan ka hadlahayay halkii bitcoin wuxuu marayaa wax ka yar 3,000 oo dollar. farqiga u fiirsada, waxaa laga hadlayaa hadda bitcoin lacagtii la dhihi jiray qabrigeedu waaba qodan yahay, talowma barri baa la kanfi doonaayoo la aasi doonaa mise maalmay sii jiri doontaabaa hadda laga doodaya. waxaa ka horraysay oo mar kale haddana soo cusboonaado maalmahan aada u jira waxaa la yidhaahdo sharikaatu taswiiq alharami. sharikaadkan ka ganacsada dadkeen ama daawo ha wataan ama dahab ha wataan ama badeeco kale ha ganacsadaan, xubin naga noqo, kadibna dadkeen dadka aad keento ayaad khidmad ku leedahay, kadibna waad dallacaysaa. waxaan u malaynayaa waqtigaan ka hadlay dhowr iyo 10 sano ka hor baan ka hadlay. ayadii waagii wax badan baa laga daawoobay, haddana mar kale ayadoo weji kale lebay maanta jirtaa. su-aalaheeda aada igu badan. insha allahu tacaala xalqadan baan iyadana mar kale ku celin doonaa, ka hadli doonaa insha allahu tacaala sharikaadka noocaas iyo la tacaamulkooda. ruuxa muslimka marka waxaa looga baahan yahay maadaama wax badani maanta isku qasan yihiin oo xalaashii iyo xaaraantii isku qasantay, oo xataa cuquudiya mucaamalaadka qaarkood inuu sawirtaba xataa ay ku adag tahay tacqiidaadka ku jira daraaddeed, waxaa laasim ah mucaamalo kasta uu galayo oo uu ka raadsanayo ribix iyo faa'iido inuu iska hubiyo oo shareecada miisaankeeda saaro intuusan ku dilaabsanin ma xalaal baa mise waa xaaraan. haddii uun aad dhinacyaha qaarkood inta faa'iido lagaa tuso aada orod isa sii dayso oo aada doobada dhex fadhiisato ood markaa kadib qiil raadisood tidhaahdo bal wadaadada yaa qaba inay bannaanta
xoogaa aad raadisato bal wadaad uu ku waafaqay markaas waxa way hawaracnimo waay ruuxa muslimka waxa laga rabaa masalada intaadan ku tilaabsanin iska hubi oo xalaasha miiro inta kadib masaladan aan hadda ka hadlayno waxaan uga hadli doonaa insha Allah taala marka hore bal inaan sawirno sida ay u dhacdo muamaladan say u dhacdaa see loo sameeyaa marka aan akhrino wixii ay ka qoreen khubarada dhaqaaluhu wixii ay ka yiraahdeen dadka aqoonta khaaska u leh muamalada noocan ah balorta sawirkeedii say u dhacdo inaan fahanno لأن وحوي قاعدة الشرع وحوي التصور محو أهي الحكم على الشيء فرع عن تصوره شيء برك هو إن تصورته ويهرت حقيقة دي سيء وتشرا سيء ودعاء سيء الله سميع مركز جوانب تيس كل استيعاب تسوء وتشرا آيات الله وضل بعض أبقاد يساء ومركز واحد رادين يساء نصوص دي شريعة قواعد دي شريعة علماء وحي كيدا هذين آيات مركز رادين يساء labadaasaad isa saaraysaa marka waa masalada la yiraahdo tanziilka ama tahqiiqul manaadka la yiraahdo waxaan u baahnaa marka hore inaan sawirno marka say u dhacdaa muamaladani intee daraf baa wadaagaya marka kadibna maxay shariicada ku khilaafsan tahay maxay se ku waafaqsan tahay ayaan ka hadli doonaa khaasatan masaladu waa naazila min an-nawazil naazilada noocan oo kale masaayisha cusub baa mustajadada cusub oo hore iyagoo kale aanu dhicin ayaa nawaazil la yiraahdaa mustajadaad baa la yiraahdaa saysh noocaas oo kale marka waxay u baahan yihiin taxadar gooni ah dad ehlu ah inta badan culimada muslimiinta ee mucaasiriinta ee waqtiga nool fuqahadooda gaar ahaan majaamicda fiqiga fataawida jamaaciga ka soo baxdo ayaa inta badan masaayisha noocan loogu noqdaa iyaga ayaan ka shan doonaa insha Allah taala markaan ka hadlayno ciwaanka muhaadaradu waxaynu ciwaan uga dhignay almutajara bilcumulat ama fil cumulat abra alforex yani ka ganacsiga lacagaha qalaad oo lagaga ganacsado forexiska طيب suuqooda waxa kale oo la yiraahdo la dhihi kara suuqu tabaadul alcumulat alajnabiyya suuqa lagu kala wareejisto lacagaha qalaad ayaa la yiraahdaa kelimada marka forex waa kelimo إنجليزي اللغة الإنجليزية كوا ولما كلمة ولا سوق جابيه بإسكا هاي وحين كسوة كذا foreign exchange بكسوة كذا foreign exchange always قبتسي هالكلمة لا قد جابيه كسوة كذا forex ساسي كوعان بحر مجعاس حتى درجة بحوث عربي جل قري علماء كقري قار بدن وكم ذا كلمة ما دام أي كوعان بحري بوحي ليهين وي عربيين oo waxay leeyihiin forex saasay u qorayaan iyadoo carabi ah laana way ku caan baxday muamaladan ama tijaarada noocani kelimadaasay marka inta badan ay ku itlaaqaan laakiin kelimadu macna ahaan way ka gudaweyn tahay macnaha ah tan hadda aan ka hadlayno oo lacagaha qalaad in lagaga ganacsado internetka through internet ama online-ka ama suuqa caalamiga ee boursa la yiraahdo in lagaga ganacsado iyo kelimada forexku ay kala gudaweyn forexku bimaana foreign exchange way macnaheedu wax weey lacagaha ajnabiga ah oo la isku sarrifo lagana ganacsado waxay noqon karaan suuqa maxalliga waxay noqon kartaa laba ruux oo toos isaga ganacsada waxay noqon kartaan dadkan hadda lacagaha sarrifa ee ka ganacsada way soo gali karaan taana macnahan hadda ka wadno ma macnahan ka wadno wax weeyaan waa ka ganacsiga lacagaha ajnabiga la isku sarrifayo lagagana ganacsado suuqa caalamiga ee la yiraahdo boorsada طيب taawe macnaha ka wadno waxa kale oo lagu itlaaqa oo buxuuta dad rabtaan inaad baadhaan lagu baadhi karaa almutajara fi alumulat binidam alhamish nawalida yani saaso litijar fi alumulat binidam alhamish hamish ka waa sharxi doona طيب ayadana marka la yiraahdo mustalahaas luqada ingiriiska waxa isaga yiraahdaan margin trading bay dhahan margin hamishka waa la yiraahdaa waxay dhahan margin bimaana oo waxa la yiraahdaa trading on the margin inta wale oo lagu itlaaqa hadda rabtaan baxthidaan ama baadhaan sidaas lagu itlaaqa
waxay inta badan ka dhacdaa waxa loo yaqaano suuqa caalamiga ah ee sarifka lacagaha waana suuqa loo yaqaano stock exchange-ga la yidhaahdo waa stock exchange waa suuqa caalamiga boursa la yidhaahdaa muxuu ingilish ahaan waxa lagu yidhaahdaa stock exchange-ga caalamiga ah ayaa inta badan ay hawshu ka socotaa ama ay ka dhacdaa mucaamalada noocani ma aha kama hadlayno hadda ganacsigan caadiga ah dadka caadiga suuqa sarifka ay ka ganacsadaan ee lacagaha isdhaafsadaan dollarka iyo shilinka la isku sarifay oo isi lala kala wareegayo ee tooska ma aha tan hadda ka hadlayno midan ka hadlayno waa sarifka ka dhacaya suuqa caalamiga ee stock exchange-ga la yiraahdo ama boorsada la yiraahdo ka dhacaya waa طيب inta kadib aan qeexno maxaa la yiraahdaa mucaamaladan say u taala مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي الرعسن وهي أدوين وعلماء أدو فربضان ومسلمين تيسوقي مادان سنة كي مر لبا قور وحبو دعا بس إيش عصوبة لقاها الله مركو هورا وحا لقا سو دياريا بحوث با لقا سو دياريا مسألة لقاها الله يو قارها وحا الله ديرا رقا تخصصك دقالها لاختصاصاتك كو تخصصي با الله ديرا mas'aladay marka soo suureystaan soo sawiraan sida loo sameeyo say u dhacdo caalamku soo ugu dhaqmo bay suuro ka soo bixiyaan suuradii ay soo bixiyeen oo soo diyaariyeen baa waxa la hor dhigaa culimada aad u farabadan oo caalamka islaami ka kala timid oo muslimiinta baa la hor dhigaa markaas iyaguna waxay sameeyaan nusuustii shariicada iyo qawaaciday saaraan suuradii loo sharxay bay saaraan marka hay'ad weyn weey culimo badan isugu tageen markay qeexayeen waxay yiraahdeen al-mutaajara bil haamishkaas markay qeexayeen waxay yiraahdeen waxa la yiraahdaa daf'ul mushtari oo aamiilka laga wado juz'an yasiran min qimati ma yarghabu shira'ahu yusamma haamishan wa yaqumu al-wasit masrifan aw ghayruhu بدفع الباقي على سبيل القرض على أن تبقى العقود المشترات لدى الوسيط رهنا بمبلغ الغرض بيدهن وحالي هذا بيدهن أذيك واحد دونيسا إن السوق كجناصت سوق وين عالمي العجاه اللي جو كلا بدشه سيد هذا محمود وكهل يسوق وين عالمك وتقريبا مالكي وحالك للرجاء 5 إلى 6 تريليون ما مليون ما 5 إلى 6 تريليون أو دولار بمالكي بالك للرجاء suuqaas baad rabtaa inaad ka ganacsato oo ku biirto marka awood uma lihi si toos adiga intaad u gasho sida suuqa gaarisa loo joogo kale intaad ordo inaad iska gasho awood uma lihi sax ma gali kartid haddaad rabto marka inaad ka ganacsato waxaad u baahan tahay in aad bixiso qayb kamida lacagta aad rabto inaad ku ganacsato ayaad dhiibaysaa lacagta aad dhiibtay waxa la yiraahdaa haamish baa la dhahaa haamish ingiliishkana waxa lagu yiraahdaa margin baa lagu dhahaa yaad u dhiibaysaa intaadan dhiibin internetka aad galaysaa account baad furanaysaa account-ka waxaad ka furanaysaa shirkad kamida shirkadaha access-ka u haysta inay suuqaasi ka ganacsadaan shirkadaha jira waa sharxi doonaa shirkadahaas baa waxaad ka furanaysaa internetka waxaad ka furan account baad ka furanay account-kaas aad lacagtii gelin $100 dhe $1,000 dhe baad gelin lacagtaasi maxay tahay lacagta aad rabto inaad suuqa kaga ganacsato qayb kamid ah ayaad account-ka gelisay in lagu kordhiyaad rabtaayo $100 suuqa waxba kama ah $1,000 waxba suuqa kama ah waxa jira marka brokayaal dilaaliin ama bangi buu noqon karaa ama dalaal buu noqon karaa ka aad ka furata way account margin account bale account ka furanayso account-ka markaad furato oo brokerka ama shirkadda wasiidka ah aad ka furato oo lacagtii aad ku ganacsanaysay rabtay in aad faa'iidada ka hesho qaar kamida aad ku shubto $100 $1,000 tobanku waxay noqotaba brokerka aad lacagta u dhiibtay ee account-kiisa ku shubtay lacagtaadu waa yar tahay
waxbuu kuugu darayaa ma 10 goor baa lagu laban laabi ma 100 goor baa lagu laban laabi qasab way in wax lagu daro say suuqa u gasho sidaas daraadeed haddii aad maalan $1 meesha dhiibatay 10 goor haddii lagu laban laabo wuxuu ku darayaa meeqa 9,000 buu ku darayaa haddii 100 goor lagu laban laabana meequu ku darayaa 99,000 oo dollar buu ku darayaa lacagtaas waxaa la leeyahay adigii waxoogaaga meesha gashaday ayaa lagu deymiyey ganacsi bayna kuugu jirtaa طيب lacagtan lagu siiyey marka ee taadii lagu daray waa qardi iyo deyn cuquudda heshiisyada sarifka ee suuqa ka dhacaya ee adigu aad samaynayso ama shirkadu kugu matalayso cuquudda iyada ah brokerka gacanta ku haynaya waxaad adigu xor u tahay oo iska tasarrufi karto oo xilliga doonto aad ka bixi karto xilliga doonto gali karto ma ahe brokerka gacanta ku hayay lacagta dhiibatay iyo tuu ku darayba isaga gacanta ku hayay gacanta ha ku hayee wuxuu gacanta ugu hayaa deynta uu ku siiyey ku deymiyey inayna khasaare ka soo gaadhin waana sharxi doonaa sida uu isugu ilaalinayo lacagtaadii isku ilaalinaya deynta uu ku siiyey buuna ku ilaalinayaa si ayna lacagtuu bixiyey ku deymiyey marnaba khasaaro ugu imaanin lacagtaadii oo tu lagu daray isagaa gacanta ku haynaya caqdiga iibsiga dollar baad gadatay euro baad gadatay lacagta tasarrufaadkana isagaa gacanta ku haynaya brokerka aad akoonka ka furatay baa gacanta ku haynaya ma aha waxaad adigu awood aad u leedahay toos u leedahay طيب saasay marka u dhacaysaa macnaheedu waxa weeye marka hore xisaab baad furan xisaabta lacag yar baad gashan oo aad rabto inay qayb ka noqoto lacagtaad ku ganacsanayso cidda aad u dhiibatay waxay noqon kartaa broker oo company ah bangina uu noqon karaa lacag buu kuugu darayaa deyn ah lacagta uu kuugu daray ta aad adigu bixisay mustalaxa fiqiga mucaasirka waxa lagu yiraahdaa mid aad adigu bixisay haamish baa la dhahaa haamish luqadda ingiliishkana waxa lagu dhahaa margin sooma midda lagugu daray oo isagu uu ku deymiyey ayadana waxa lagu yiraahdaa luqadda carabiga istilaax ahaan waxa loo yaqaanaa ar-rafi'a al-maliya ar-rafi'a al-maliya luqadda ingiriiskana waxa lagu yiraahdaa leverage baa la yiraahdaa leverage yani wax weeye waa lacagtan uu deyn ahaan ku siiyey taadii ugu daray si suuqa aad lacag fiican uga ganacsato oo aad faa'iido uga hesho abdiga lacagtu kuugu daray iyo taadiiba waxaynu nidhi isaga gacanta ku haynaya oo maamulaya muxuu u maamulayaa si uusan khasaara u soo gaadhin markuu khasaara dareemana siduu uga badbaadayo lacagtaada ugu badbaadayo waynu sharxi doonaa si uusan marnaba isaga khasaara u imaan laana wax way waa bangi ama lacag bangi uu ka soo qaaday waay lacagta taada lagugu darayo waxa dhici karta brokerka idin dhaxeeya adiga iyo suuqa in uu bixiyay baa dhici karta oo ku deymiyay marna waxa dhacda asaga laftiisu bangiyo ku sii xidhan yahay bangiyada uu ku xidhan yahay buu deyn ka qaadanaya lacagtan lagugu darayo taadii marka ee lagu deyminayo bangi baa laga soo qaaday markii bangiga laga soo qaadayna bangigu faa'iido saaran brokerkan adigu aad akoonka ka furatayna isaguna faa'iido saaranaya marna saasay noqotaa oo laba gacmood bay noqotaa marna hal gacan bay noqotaa intuba way jirtaa macna طيب sidaa markaynu u fahanno mar kale waxa u baahan inaynu fahanno si ay suuradu inoogu sii cadaato imisa daraf baa meeshan ku jirta oo suuqan sidiisaba ku ciyaarta ama lukule taqriiban waxa way 4-5 daraf 5 dhinac ila 4 dhinac baa ku wada jira suuqan mid koobaad waxa weeye waa miskiinkan lacagta yar dhiibanaya faa'iidana raadinaya brokerka account ka furanaya shirkadda kadibna lacagta dhiibanaya faa'iido raadiska ka waa darafka koobaad waana kan inaga aanu badannahay waa darafka labaad waxa weeye
وشركتها بروكرة أما وساطة اللي يدهدو أما سمسرة اللي يدهدو سماسرة أما وساطة اللي يدهدو واي أو شركة فربضن باك الشقية شركتها ميت كميدا دقيقة الدورانيسة طيب شركة داسي waxaa shartiya inay haysato ruqsad haysato loogu ogol yahay suuqa inay ka ganacsato طيب waa inuusan raasamaalkeedu uusan ka yarayn xad muayyan yani saqfi muayyana raasamaalkeedu waa inuusan ka yarayn waa in hay'adda suuqa maamusha ay ka hayso damaanad bangi shuruud ba loo dhigaa cidda suuqaasi broker ka noqonaysa shuruud buu leeyahay cid walba ma geli karto shirkadahaasi oo nooca labaad ama darafka labaad ah ayaga laftooda laba nooc u kala baxa waxa la yiraahdaa sharikaatu samsara ra'iisiyya sharikaad dalaaliin oo broker ah oo iyagu waaweyn suuqyada caalamiga ee boorsada iyagu ku leeyihiin xafiisyo ku leeyihiin kuwaasi waxay ku soo xigaan bangiyada waaweyn oo u tagi doona bay ku soo xigaano suuqyada laftooda xafiisyo ku leeyihiin nooca labaad ee brokeradu waxa weeye waa wasato waa brokero maxalliyiin ah wadan walba ka jira oo xisaabaad bay leeyihiin waxay la tacaawunaan oo ku xidhan yihiin brokerada waaweyn ee suuqa caalamiga kule xafiisyada kule bay iyaguna ku sii xidhan yihiin Kenya ka jira Soomaaliya ka jiri karaan Sacuudiga ka jiri karaan adduunka ka jiri karaan laakiin waa brokero hoose waay kuwa waaweyn bay iyaguna xisaab ahaan ku sii xidhan yihiin oo suuqa u sii maraan toos sagama tii karaan iyaga laftooda طيب waxaa dhici karta inay noqdaan bangiyana way noqon karaan soo taraf shirkadii ma waxaan idhi qaybta koobaad waa dadka caadiga ah ganacsi raadiska faa'iido raadiska qaybta labaad waxaan idhi waa brokerada u dhaxeeya dadka iyo suuqa oo laba u kala baxa kuwa waaweyn oo suuqa xafiisyo ku leh iyo kuwa yaryar oo iyaga maroo hoos joogo wadamadan dhan ka dhisan kuwa yaryar ka baan marka inta badan anaga la mucaamaloona kuwa lacagaha u dhiibanaysaan xataa kuwii waaweynaa ma kuwa yaryar ka way oo wadamada ka jira طيب bunuugta qaar koodna way sameyn karayaan darafka saddexaad oo muxuu ahaayay suuqaasi ku jiraay waa waxa loo yiraahdo jihada lacagta ku kordhinaysa ku deyminaysa waa oo waxaan hadda soo sheegnay oo la yiraahdo ar-rafi'a al-maaliyya ar-rafi'a al-maaliyya xoolahan lagu daraayay kuwaagii lagu qaadahayo lagu badinayo yaa bixinaya waa in jiha kala jirto marka lacagta laga qaadayo bangi bay noqon kartaa sharikada lafteeda brokerka lafteeda ay noqon kartaa bangi markuu yahay wuxuu deyminayaa sharikada brokerka sharikada brokerkuna aday ku sii deyminaysa marna waa brokerka laftiisa lacagtiisii way aduu ku deyminaya intaba way noqon karaysa طيب soo meeqan hayna meeqa daraf baan hayna saddex baan hayna sooma darabka afraad ama qolada afraad ee suuqan lugta kule waana qolada ugu xoog badan waay waa qolada la yiraahdo saanicu suuq waay suuqan exchange-ga ee caalamiga ah qolada samaysa waay waxaana la yiraahdaa market makers baa la yiraahdaa market makers bimaana wax weey waa sunaac al-aswaaq waay ama sunaacu suuq waay suuqan ba qolada samaysa ee maamusha ee gacanta ku haysa ee lacagaha mar dalacsiisa mar hoos u dhigta mar qasta mar hagaajisa kuwa waay yeeyin qoladaasi awood badan leh qoladaasi waxa weeyaan waa qolada muxuu ahaayay bunuugta caalamiga ee waaweyn waay bunuugta waaweyn ee caalamiga ama dawladahan hoos ma caalamkan saddexaad iyo waxaan ay dhahaadiyo waxaan yar kaaya ma dawladaha waaweyn ee bunuugtoodu adduunka maamulaan bangiyadaas caalamiga ee waaweyn yaa suuqan horta sameeya ayaga wixii kaydaha ee lacagahayeen soo galiya arqaam ahaan u soo galiya ayagana suuqa ku taclaacubo ku ciyaaro say doonaan ka yeela Soomaalida arkin si fudud markaad fiirisaan mesela boorsada suuqan hadda aan ka hadlayno markaad saa u fiirisaan Soomaalida arag sakan baa waxa isku bedelaya ascaarti yaani waxa biriq baanta nambu ku haya biriqda aad arkaysa yaa ku ciyaaray
ma wax uun iska socdaad moodi oo automatic isaga ciyaaraya waxaa jira jihooyin waxaan sameeyey maamulaha ku tasarrufa waxaana sidaa u gala yeeyihiin waa bangiyada waaweyn ee caalamiga sidaa markaad u fahanto adigu hawsha intaa leeg xageed ka joogtaa marka wiilka yarka Soomaaliga ee $100 meesha ku tuurtayo xageed ka joogtaa bal isweydii caalamka weyn ee 5 ilaa 6 trilyan ee dollar maalinkii kala rogay hawl u baahan fiqi Soomaa marka hal dhinac bay ka fiirinayaan markaas waxa kula sheekh maxaa dhibo ku jira waa un sarif lacag la sarifayo waa lacagtii sarif baa gashay dollar baan iibsaday uu ii kacay yuuraan ku badashay ishil mushkila marka hadii uu tasawuri lahaa waxan sidan isugu qoofalan ugu yaraan wuxuu ku qanci lahaa waxan inuu u baahan yahay cid isaga ka baawar weyno awood u leh waxan inay fahanto ahkaam saarto marka basaatada loogu degdegayo masaladu ma ay ah saan tilmaanayba suuqa noocaasi waxaan hadda ka hadlayno waa lacag sarifkooda lacagaha inta badan lagu kala sariftana waa lacagaha ra'iisiga la yiraahdo ee caanka ah dawladaha xooga badan ay leeyihiin sida dollarka oo kale oo asaas u ah مثلا دولار كندا oo kale junayha sterling oo kale yanka yaabaan oo kale yuurada oo kale lacagaha way lacagaha inta badan la isku sarifay shilin Kenya meesha ma yaa shilin Kenya warkiisu ma jiro shilin Soomaali warkiisu iska badaa dirham iyo riyaal iyo arab iyo warkeeda ka bax wax laga hadlayo wax weeyaan waa dibiyada waaweyn ee halista ah lacagtooda way waxa la isku garaacayo ee wax laga dhaxraadinayo waa laakiin waxa jira suuqa la yiraahdo suuqa bursal caalamiga la yiraahdo lacagaha khaas kuma xataa badeecadaha kale saamiyada kale waa lagu kala gataa badeecadaha dahabka kale waa lagu kala gataa waa suuq weyn qaybta lacagaha uma anaga hadda ka hadlayna طيب sanadaadka lagu kala gataa طيب waxaan doonayaa wax yar inaan dul istaago masalada muhiimka ah intaanan gudagelin ahkaamta sharciga ee masaladan ay leedahay waxaan aad ugu dadaalayaa bal marka hore inaad ila fahantaan waxaan ka hadlayo inaad ila fahantaan laana markaad fahantaan kadib aad garan kartaan yaani wax weeyaan xagee wax ka khaldan yihiin hadii marka la idin sheego adiladeeda sharciga طيب waxaan soo sheegnay shuruuda deynta lagu siinayo lacagna waa lacagta adiga aad baxsatay yar midna waa mid lagu daray oo aad u fara badan lacagta lagu daray marka shuruud bay leedahay shuruudeeda waxa kamid ah inaad ka furato account ka furato brokerka ama bankiga adiga aad wax u dhiibanayso ee aad marayso waa inaad ka furato account ka furato account-ka waxa loo yaqaanaa xisaabul haamish ama waxa loo yaqaanaa margin account baa la yiraahdaa waa account-ka aad furanayso waa account-ka markaad furato tilaabada xigta waxa waaye inaad geliso ganacsiga sarifka ee suuqa inaad ka gasho doonayso lacagta aad ku ganacsanayso qaar kamid ah waa inaad account-ka geliso lacagta guud ahaan marka la fiirinayo intaad account-ka gelisay waxay ka matashaa wax yar in yar bay matashaa طيب waxay ku xidhan tahay brokerka aad la mucaamaloonayso iyo inteebu dadka u laban laaba lacagta uu deyminayo siinayo waxa laga yaabaa boqolkiiba 10 in lagu laban laabo waxa laga yaabaa boqolkiiba 100 baa laga yaabaa boqolkiiba 1000 baa laga yaabaa farahaba ka baxdaba oo deyn culus lagu deymiyo ayaa dhici karaysa marka way iskhilaafsantaa shirkadaha iyo lacagaha iyo way iskhilaafaya tilaabada saddexaad waxa weeye lacagta aad bixinayso ee account-ka gelinayso toos adigu suuqa ulama gali kartid cid kalena ma marin kartid ciddaasi brokerka aad la mucaamaloonayso keligii baad marin kartaa mar hadday lacagtaadu halka gasho khiyaar kale ma lihid ayagu markay lacagtu soo gasho shirkadaha tan qodobkan way ku kala duwan yihiin markay saa u soo gashaba qaar baa waxay ka goostaan khidmad ka goosta qaarna kama goostaan طيب waxa xiga oo qodobka afraad ah
lacagta aad gashatay meesha haamishka la yiraahdo ama aan margin baa la yiraahdaa waxay ahaanaysaa rahan oo bangiga ama brokerka aad la mucaamalootay baa haysanaya ilaa xisaabtaadu intay soo xidhanto wixii cadaado waxooda ka goostaan aad kala baxdaan waqti ay noqotaba hawshaas iyaga gacanta ugu jirisa waa rahan raanta maxaa la yiraahdaa waa curaad lacagta lagu deemiye suuqa gashay yaa khasaaro looga baqaya lacagtaadii marka aad meesha dhigatay waxay rahan u ahaanaysaa inay ilaaliso khasaaraha ku imaan kara lacagta lagu deemiye khasaarahaas ay ilaalinaysaa saas taradeed waa arki doonaa markii khasaaro ay dareemaan lacagtaadii baa markaba lagu booday waxaa qodobka shanaad ah ee ruuxa lacagta meesha dhigtay ganacsi raadiska iyo ribix raadiska lacagtu suuqaas caalamiga ah marna khasaara imaanaya marna faa'iida imaanaysa seebuu ku imaanaya lacagtaadii aad dhigatay $1,000 ah iyo 9,000 lagugu daray 10,000 ama 10,000 lagugu daray iyo suuqa geysatay dollar way lacagtu sarif baad gelisay euro baad ku bedelatay euro markaad ku bedelatay waxaad sugaysaa maxay suuqa euradu inay kacdo sooma kadibna aad rogto kadibna aad lacagtaad u rogtay sugto intii suuqa ka kacayso farqiga u dhaxeeya lacagtaad gadayso iyo lacagtaad soo iibsanayso farqiga u dhaxeeya way wax la faa'iideeyo farqu sicirka wax la yiraahdo yani sicir sarfiga طيب marmar baa marka waxa dhici karaysa intaad yuuradii iibsato yuuradii meeshii la sugayay inay suuqa kacdo inay dhacdo maxaa la sameeynaa marka waxay fiirinayaan qoladan brokerada aad wax u dhiibatay waxay sugayaan dhicidda ay dhacday yuuradii dhacday soo khasaar ma imaan طيب khasaaraha yimid laba mid waay haddii uu raasamaalkii aad meesha dhigatay halis gelin karayo marka waxay sameynayaan way kula soo xidhiidhayaan waxay leeyihiin raasamaalkaagii khatar buu galay intaasaa isdhintay soo buuxi waxay yidhahdaan margin call bay yidhahdaan waa emergency markaas ama waa inaad buuxiso haddaad buuxin weydo maxay samaynayaan awood baa waxay u leeyihiin caqdigii heshiiska markaa socday jabinayaan way ka baxayaan markay ka baxaan khasaarihii ku soo gaadhay adiga miyaad u simantiin ma wada qaybsanaysaan maya khasaarihii xoolahaagay ka goynayaan aan dhahna maalan $1,000 baad dhigatay hoos u dhacun yimidna wuxuu noqday $200 $200 tay ku siiyeen ma saamaynayse $200 waxa laga goynayaa ya taadi meeqa ku yaala marka 800 baa ku yaala sooma marba waxa dhici karaysa in raasamaalkaagii oo dhanba khatar galaba kunka dhigatayba halis buu gali karaa markaas oo kale tana si degdeg ah heshiiska u jabinayaan kadibna way isbadbaadinayaan marnaba lacagta ayaga meesha ay geliyeen marnaba khasaara ma soo gaaray laana suuqii bay la socdaan markay is yiraahdaan wallahi daadkii waa idin soo gaaray ya bii waa idin soo galayaan markay yiraahdaan ba heshiiskii adigu ma jabin kartid markaas oo kale awood ma lihid ayaga awood la way jabinayaan kadibna xoolahaagii bay ka kabayaan adiga khasaara iskale marka iyagu khasaara waxba kuma laha طيب markaasi iyadana waa qodobka xiga waay waxa saddexeeya bangiyada ama sharikadaha brokerada qaar kamida lacagta aad dhiibatay iyo safaqaadka ay ku matalayaan ay iibinayaan ama ayaga aad u marayso waxbay saartaano khidmad bay saartaan waxa iyadana sideedaad oo u baahan inaynu fahanno xaalad kala jirta waxa jirta sideedaba suuqyadani waxay ku shaqeeyaan maalin bay ku shaqeeyaan faa'iidada la kala faa'iidayo waa in 24 saacadood ayna dhaafin waay sarifka aad gashay iyo safqada aad gashay waa inay xidhanto ya maalin waa inay ku xidhanto maalin macna waxa weeye waxa laga wadaa 24 saac waa inaysan dhaafin heshiiskii oo iska furani ma socon karo waa inuu maalin xidhmo waxa dhacaysa marka
haddii ay dhacdo sicirkii lacagaha eed sugaysay inuu kaco baa meeshaad rabta ma gaadhin waxaad rabtaa maalinka labaad inay safqadu u gudubto marka ama ma ahe khasaaraad dareento markaasaad tidhi maalinka xigaad kaban doontaaye safqadani ha ii furnaato ilaa berri ha ii furnaato suuqa berrina waa ka qaybgelayaayo way ii furnaani marka waxaa la yidhaahdaa waxay qaadanayaan brokerada ama bangiyada aad lacagta u dhiibatay hadduu bangi ama broker yahay wuxuu ku saaranayaa khidmad la yidhaahdo rusuumu tabyiit maxaa la yidhahdaa lacagtan bariday ileen waxaan bangiyaa lacagtan bixinaya bangiyada caalamku sidoodaba suuqyada iyada faa'iidadooda waxay dhacdaa maalinkiiba mar waa inay dhacdo kama daahdo haddii marka adiga aad tidhahdo ha ii barido bilaash kuugu baryi maysee alaab kuu baryaysa weeye waana lagu hayne laakiin waxay ku saaranayaan khidmad bay iyadana ku saaranayaan waxaa la yidhaahdaa rusuum atabyiit baa loo yaqaanaa halkaana waxbay ka helaan habeen kastoy barida marka waxbay saaranayaan habeen kastoy barido hadday kusii furnaato macnaha ayadana taana ribix iyo faa'iiday ka helaan ayib maxaan haynaa marka xasiilada inoo soo baxday wax weeyaan lacag yarood meesha dhigatay account baad ka furatay broker baad u dhiibatay ama banki suuqu u furan yahay kuwa waaweyn bay iyaguna kusii xidhan yihiin oo saa ula sii mucaamaloonayaan bangiyadii waaweyna caalamiga ee suuqan ka shaqaysanaya hagaajiyey baa ka sii koreeya hawl noocaas iyo baddaasaad ku dhex dhacday waxoogaa yar baadna ku dhex tuuratay waxoogaagii yarka ahaa intaas isagoo labalaaban oo daynaa lagugu daray dayntii iyada ahayd bilaash ma aha ixsaanna ma aha fii sabiilillaahina ma aha ya ilaahay wejigiisaa la raadinayaana meeshaa lagama yaqaano waxaa lagugu daray ee meesha lagu leeyahay waad ka ganacsanoo waa laguu geliyood fiirsanayso daynta lagu siiyey waxaa laga raadinayaa ilaa waa ganacsi faa'iidaa laga raadinaya intaasoo wajibaa marka looga faa'iidaya oo sharxi doono insha allahu tacaala ayib taana waa mid oo yani waxa way khulaasadu mucaamaladu sidaasay u taallaa markaan intaa ogaano marka suurada mucaamalada markaynu fahanno su-aasha imaanaysa waxay tahay shareecada maxay ku khilaafsantahay naasilada noocan oo kale asaan horeyba u tilmaannay inta badan in lagu kala aragti duwanaado ma diidayso bimacnaa waxaan ka wadaa mar walba waa suurtagal in laysku khilaafo sababta keenaysa maxay tahay sababta ama waxaa laysku khilaafayaa siday u dhacdo iyo tasawurkeeda iyo xaqiiqadeeda lagu kala aragti duwanaanaya ama waxaa dhici karta in siday u dhacdo laysku waafaqo laakiin laysku khilaafo xukumkeeda iyo nusuusta iyo qawaacidda ku dabaqmaysa lagu takhriijinayo ila waa ijtihaad waa taxqiiqulmanaat waaye nusuustan iyo qawaaciddani waxay ka hadlayso tan ma tahay mise waxbay ku kala duwan yihiin dhankaana waa ka imaan kartaa marka waa lagu kala aragti duwanaan karayaa taasi middaas waaye in marka waxa weeyaan aan caawa hadda soo bandhigo maxaa laga yidhi niqaashaadka laga galay see macnaha looga jawaabay see culimmadu muxuu ahay masaa-isha u tanaawuleen dhinacyaheeda kala gedisan qolo walba ictiraadkooda maxaa lagaga jawaabay ishkaalaadka maxaa lagaga jawaabay taa iyada taqriiban waqti bay u baahan tahay xalaqaad bay u baahan tahay mana ku talagelin waxaan ugu talagalay si kooban inaan masalada aan majliskan ama jalsadan aan kaga baxo sayna waxoogaa u dheeraan ayl waayahan dambe muxaadarayki dheerdheeraa lamaba dhegaystaba waxay dhahaan take away baa waayahan socda ya take away waxoogaa yaroon 5 daqiiqo dhaafayn ama 10 daqiiqo dhaafayn sheekh iisoo tuur kansho ma haye ya inaga inta badan ma soo gaar laakiin qolyahaas reer galbeedka Yurubka iyo ku nool ruuxu waa kadeeday 4 saac oo mashquulsan marka kansho uu ku qureecdo ama ku qadeeyo ma hayo wuxuu sameeyaa marka meelo yaryar waxaa loo sameeyay kiyosyo oo kale ah oo ay cuntada hore uga sii qaataan isagoo baabuurkiisa saarab hore uga sii qaadan jidku ku sii cuni haday wax soo haraan xafiisku ku dhamaysan kansho uu ku dhamaysto maahay marka maadaama hadda muxaadaro dheero ajuubadeedii wadato ictiraadaadkii ishkaalaadkii wadata laga yaabo dad badan inaysan kansho weyn waxaan ugu talagalay si kooban inaan u tilmaamo maxaadiirta sharciga ku jirta mucaamalada noocaas sidoo Maxamuud hore u sheegayna ma aha mas'alo wadaad lagu radinayo Soomaalidu iska jeceshahay xiisada iyo sheekh hebel ba is haysta iyo xogaa muxuu ahay maalma la wada
marka masaladan maaha mas'alo wadaad mucayyana lagu radinayo maaha markii laga tago masaladu inay tahay mas'alo ay culimada muslimiintu tanaawuleen muxuu ahay ninba uu aragti ka bixiyay markii laga tago wadaad mucayyan oo Soomaaliyeed oo hadda masalada ka hadlay oo aniga aan radinayo ma jiro haddii ay ahaan lahayd oo la radiyana ceeb ma waaba sax diintaaba radi ku salaysan Sooma diintaaba quraanka kariimka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam mise afkaar radinaya radigu waa asal kamid hadii aadaabtiisa la ilaaliyo asal kamid usuusha diinta waay marka laakiin maqsuud ma taqriiban mas'aladu inta badan masaayisha noocan markan ka hadlayno waa markay suuqa ku bataan markay su'aashooda ugu badato laba bilood ka hor baan u maleynayaa bay laba kooxood saddex kooxood oo dhalinyaro ay yimaadeen la fadhiistay oo masalada u sharxay oo ku iri waan ka hadli doonaa hadda waxaan markii qaar kamid inay masaajidka fadhiyaan marka waqti hore aqidnayd wadaad Soomaaliyeed oo ka hadlay ninkuu dooni baa han noqdana ma dhageysan hadalkiisa hadaan dhageysana waxaan dhihi lahaa wuxuu yiri waxaan ka idhi ya mana ku arki doontaan insha Allah taala halkaas ma marayso kaliya tan wax way masalada saan u akhriyay iyo culimadu waxay ka dhaheen wixii uu taqriiban ila xog batay baan soo gudbinaya insha Allah taala muaamaladaasi marka noocaas aan sharaxnay sida u sharaxnay taqriiban waxa ku jira intaas oo maxduur oo sharci ah dhinacyo fara badan bay shariicada ku khilaafsan tahay inay shariicada khilaafsan tahay oo ay khaldan tahayna intaan arkay culimada wax ka qortay ee ka hadashay jamaahiirtoodu saasay qabaan badankood culimada mucaasiriinta intaan arkay saasay qabaan tayib maxaa ku jira marka si kooban hadaan u tilmaano kow waxa ku jira lacag lagu deymiyay cidda ku deymisay ama broker ha noqdo ama bangi ha noqdo lacagta lagu deymiyay oo lagu deymiyay in laga faa'iido cidda ku deymisay lafteeda faa'iido ka raadinaysa adiga laguguma danaynayo saan sheegnayba ihsaan iyo aakhira raadis iyo fi sabilillaahina ma aha waa qardi iyo deyn lagu siiyay si cidda ku siinaysa ay faa'iido uga hesho adigana aad wax uga hesho soo sharxay nidaam ahayn tayib maxay ka qabtaa diintu in lacag la isdeemiyo xoolo la isdeemiyo cidda deynta bixinaysana ay deynta nafci ka hesho fuqahadu waxay isku waafaqsan muaamalada nooca u taala inay tahay xaraam ribada nooc kamida waana qaacidada culimada isku waafaqeen sida fuqaha badan soo guurinayaan madaahibtoodu oo la yiraahdo kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba deyn kasta oo ruuxa bixiyay nafci u soo jiida u sababta waa ribo xadiis weeye laakiin waa daciif xadiisan daciif buu ku yahay laakiin ka mas'ala fiqhiyya qaacida fiqhiyya buu sax weeye oo la isku waafaqsan yahay sababtu maxay tahay sababtu wax weeyaan deynta sideedaba waa ihsaan baabu deyn waa irfaaq waa ihsaan waa samafal aakhira lagu raadiyaa intay deyntaasi ka maqanta ilaahay baad ajir kaga heli deyn wax ribix iyo faa'iido laga raadiyo nafci ma saas daraadeed baa uquudda waxa loo qaybiyaa uquudu irfaaq iyo ihsaan oo duyuunta iyo damaanaadka wixii la mid ah iyo wax la yiraahdo uquud muaawada oo uquudda ribix iyo faa'iido laga raadiyaa iyo uquudu tawthiiq oo muxuu ahay ay kamid tahay rahantiya wixii la mid sidaas daraadeed halkaas waxa ku jira deyn cidda bixinaysa ay faa'iido ka raadinayso waana qardi oo nafci u soo jeeday ciddi bixinaysa nafciguna waa mashruud oo aqdiga laftiisu sharti kaga dhigaya markuu ku siinayo wuxuu ku siinayaa isaguna og yahay doonayaana qasadkuna yahay inuu wax ka helo markaas oo kale waa isku waafaqsan marka inuu yahay xaraan yahay mar labaad waxaynu soo sheegnay haddii safqada aad ku jirto maalinkii aad xidhi weydo oo ay kula gudubto maalinka labaad ay kula gudubto maxay qaadanayaan baan nidhi
يا وحلي هذا الرسوم التبييت صفقدا كوبر يدي ما ننتك لأجذبتي وحكا قادنيان خدمة عمولي كا قادنيان خدمة داسنا أيضا والربو صوت معي تهي خدمة داسي وحي سلك كو هيسا دينتي كسيين صفقدي كتمت وقيبت ugu muhiimsan lacagteeda ayagu ay ku deymiyeen ayay iyaduna ku timid nafciga iyo rusuum tabyiidkaasi ay qaadanayaan ayaduna waa suura labaad oo suwarka ribada kamida waxaan soo sheegnay 24 saac waa inay safaqaad ku xidhmaan wixii faa'iido ana lagu kala baxo sooma bimaana waxaan ka wadaa xagga yaani wax way qorida waay xagga qeyd sarfiga waay ama xaqiiq ahaan waa u tagi doonaa طيب تاوا قضب iyadana labaad waay waxa ay saaranayaan waa ku kala duwan yihiin soo tilmaanayba laakiin taana waa qodob labaad oo iyadana waji labaad oo wujuhda ribada kamid waay saddex sidaan ogsoonahay lacagaha sarifkooda marka laga ganacsanayo sarifka lacagaha shariicadeenu shuruud bay u dhigtay waana meelaha ugu khatarsan ee ribadu gasho waay haday lacaguhu kala jinsi yihiin oo laba nooc kala yihiin oo laba dawladood soo kala saareen hal sharti baa sharti oo ah التقابض وإن لك لقاته أو إسي تقابض كاللبا وقيب سما لبا الروح إسهر تشوغو أو إسي وكلا قدومة وحالي هذا يعني وحويان تقابض حقيقي هذا مرنا وحو النقضاء تقابض حكمي وعرفي أمريكا لو علينية ووحي علماء يدهدان لعقهن انت بدن مصرف كبنقية يدحمده أما محوء هاي بنقية كتعلقة وحي يدهدان suurtagal baa markaaba hoo aysiinay ka dhacdee laakiin waxa la fiirinayaa sida curfiga laba maalmood oo maalmaha la shaqeeyo kamid ah haday sabti iyo xadix soo gasho maya laba maalmood oo shaqo ah ayaa curfigu yahay wixii ka dambeeya lacagta in la qaato labada maalmood wixii dibdhac yimaada dibdhaca halka ku yimaada waxay leeyihiin qabdigii ma diidayo laakiin labada bari ee yawmul amal yawmay amal wixii ka badani waxay leeyihiin marka riba nasii'a galis laana waxa weeyada qabdiga wuxuu u noqdaa curfiga taxdiid rasmiya shariicadu inta badan uma sameeyno curfiga loo celinay tayib maadaama marka ay tahay waxa lagu ganacsanayo lacag la kala sarrifanaya ay tahay su'aashu waxay tahay horta ma dhicin marnaba ma dhacayso taqaabud xaqiiqiya hoo dollarkii yuuradiina isii yankii isii ma dhacayso tii xaqiiqiyahay ma dhacday marnaba suurtagal ma oo suuqyadaasi kama dhacdaba waxa la isweydiinayaa marka taqaabudkii xukmiga ahaa ma dhacay qoraalada inta badan waxay tilmaamayaan sida majmuuc fiqh islaami uu tilmaamayo waxay leeyihiin taqaabudka xukmiga ah waxa sharti u ah laba qodob qodob weeye horta ilaa uu xaqiiqi ka noqonayo in aan lagu tasarrufin wixii aad safqada ku heshay qodobka labaad oo aadan isticmaalin way macnaha beec iyo shariic u isticmaalin qodobka labaadna waxa weeye waa in ay ka dhalato suurtagalnimada inaad wixii si toos u qaadan karo uu isu bedeli karo qabdi xaqiiqi ah hadduusan qabdiga xaqiiqigi ka dhalanin oo imkaaniyatu القبض أينن إيمانين وحيليه المركزي لما هلين قبضي حقيقي طيب مركا معاملات كان لفيريا مركا وحيليه المجمع الفقه الإسلامي علماء وحكا قرطي وحيليه السوق يد عالمي جاء العجها اللقوك لا صرفته قبضي حكمي جاء يسجل مال إسكردة حتى كي حقيقي جاء اللي بدا بريه مالمها عمل كحد كي حكمي جاء اللي بدا بريه شقده صعته انت لو سوغاي حتى كاس كما جيرو waxa yeelay uu ka sii dibdhaca oo waqti kale uu sii qaata waqtiga kale lacagtu sii qaadatay qabdigeedii qaadashadeedii gacan ku dhigeedu uu sii daahayo waxay marka diidaysaa ahadiistii nabiga sallallahu alayhi wasallam ay ka hor iimaanaysay rasuulku laha fa idha ikhtalafat hadhihi al-anwa' hadhihi al-ajnas fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yadin يعني وحويان هو إسيدة هدي لواي
marka waxay noqonaysaa ribay noqonaysaa suuqyadaasi marka waxay leeyihiin marka xaqiiqadooda la fiiriyo xataa qabdigii xukmiga kama jiro maxaa imaanaya marka lacago dayn lagu kala gadanayo midani ma xaqiiqoobin weli ma noqonin wax yani wax weey la wareegay weli tasarrufkii ruuxa ma soo galin haddana waxaa lagu galayaa yani wax weey mucaamalaad kale lagu sii galayaa faa'iido kale laga sii saaranaya waa la sii wadayaa ilaa marka dambe ay gaadhaan heer inay safqadan iyo heshiiskan iyo sarifkan ay xidhaan muddo kadibna lagu kala baxo ruuxii wax u dhiibtay iyaga ay ku kala baxaan way dambaysaa waxaa meesha ku jira ribada nooca loo yaqaano riba nasii'a waana labada nooc ee ribadu u qaybsanto nooca si khatarsan waa riba fadliga waxa la yiraahdaa waa xaraan laakiin tahriim alwasaa'il bayli amma riba nasii'a waa xaraam tahriim almaqasid bayli ayada xaraamnimadeeda iyada asal ah halkaana culimadu dareenkaasi ka muujinayaan waxay leeyihiin dhankaana riba kaga jirta imsa dhinac bay kaga jirtaa marka imsa dhinac waan tilmaano ribadu kaga jirta kow waxaynu nidhi faa'iidada ay saaranayaan deyntii ku siiyeen laba markay safqadu habeen barido ayadana waxbay saaranayaan saddex wixii wax qabdi xukmiya ama xaqiiqiya dhacaya ma ahee waa safaqaad ayaga oon qabdi xukmiya dhicin sii soconaya saddexdaa dhinacba riba kaga jirta qodob waa qodobkaas oo saddex dhinac imaanaya qodobkaas labaadii waxa weeye brokerka ama bangiga adiga suuqa idin dhaxeeya lacagta u dhiibatay markaad u dhiibanayso ee ganacsi ugu dhiibanayso shardi wuxuu kaaga dhigayaa inaad isaga marto in isagu ku matalo manasadiisa uu suuqa ku leeyahay caalamiga ah in aad marto ilaan toos uma tagi kartid lacagta ii dhiibo waxna waa kugu darayaa ganacsi baan gelinayaa laakiin aniga un baa ku matali karaa cid kaleeto suuq toosna uma geli kartid cid kaleetood mari kartana ma jirto asagana shardi bay u tahay markaad account ka furanayso lacagtii shardi waxaa u ah dayn baan ku siinayaa taadana waa ku darayaa laakiin anaa wadaya manasadiisa khaaska halkaana waxaa ku jira maxduur sharciya oo waxa la yiraahdo aljamcu bayna salafin wa muaawada laba aqdi oo isqaadan karin baa isa saaran labada aqdi muxuu yahay waa daymin iyo beec sooma ana lacagihii gadaya waa sharti sooma waanan ku dayminaya anaana gadaya waxay ka dhigan tahay anoo ku idhi oo kale lacagtan $1,000 ah waa dayni qaado laakiin aniga hayno ku ganacsano inoogu ganacsano faa'iido inooga wada raadin waanan ku daymiyay sooma maxaa meesha ku jira marka laba aqdi oo midna yahay daymin midna uu yahay ganacsi sooma aqdi ganacsi iyo aqdi dayn ah in la isa saarana shariicadu waa diiday nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiidka Abdullah ibn Amr ibn Aas ay rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam la yahillu salafun wa bay' wala shartani fi bay' wala ribhu ma lam yadman wala bay' ma laysa indak halal ma ma banana bay' iyo dayn la isku xiray dayn iyo bay' isku xiran halal ma nabi sallallahu alayhi wasallam laba sharti in bay'a loo wada dhigana halal ma waxaadan damaanadiisa lahayn inaad ka ribixdana halal ma waxaadan haynin inaad gadana halal ma saasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam hadithka Tirmidhi Abu Daawud iyo Nasa'i ba soo saaray Tirmidhi wuxuu leeyahay hadith saxiixa Ibn Hibban iyo Hakim ba saxiix iyo qeyrkood Sheikh Albani wuxuu leeyahay waa hasan maxaa ku jira marka waxa ku jira ana ganacsiga ku wadaya deyntanna wayna isku xiran yihiin laba aqdi oo shariicadu diiday in la isku xiran waay halkaana maxduur sharciya kaga jira waxa kale sheegay oo culimadu tilmaamayaan markaad safqada gasho dollarkaagii inta la iibiyo euro lagu bedelo intayna xaqiiqan noqonin waxa lagu qorayaa page-ka ay leeyihiin broker ku leeyahay ayaa macluumaadka aad kala soconaysa halkaas lagu qorayaa qorida halka lagu qoray
iyo inay dhab noqoto soo xaqiiqowdo wax gacanta ku jira ay noqoto farqi baa u dhaxay way kala dambeeyaan markay safqad u dhacdo shaashaday ka muuqani laakiin inay xaqiiqan noqoto xaqiiqowdo way ka dambaysaa maalmay qaadani haddaad tiraahdo hadda maalan waxaad ku garan kartaa shaashadiibaa waxaad ka aragtay inaad faa'iiday ya ninkaagi $1,000 dhiibtayoo $100 inaad faa'iiday baa shaashada kaaga muuqata haddaad tidhaahdo safqad xidha haddaan baahdahayo islaantii baa iga umuulaysa $100 ii soo dira ma kuu soo diraya ma lagu soo dirayo soo ma waa inay wakhti qaadato safqada la soo xidho adiga iyo muxuu ahaay ciddii ku madalays tasfiya samaysaan kala baxdaan wakhti kadib baa $100 helaysaa meesha maxaa ka muuqda marka shaashada waxa ka muuqda iyo masalada qabdiga farqi baa u dhaxeeya way kadib dhici qabdiga xaqiiqiga uu ka dambeeya maxaan u socdaa marka waxa waaye intuusan qabdigii xaqiiqiga ahaa dhicin mucaamaladii sarifkeedii waa sii socdaaba soo ma markii ay sidaasi ay u soo geliyaan muxuu ahay shaashadii page-ka shirkadda u soo geliyaan ama brokerka haddana ma istaagaysee way sii wadayaan kuwa kale ku sii galayaan ribix iyo faa'iido kale lagu sii raadinaya tii hore ee waxoogaaga laga helayna ayadoon weli la qaadanin baa la soo dhaafay dhowrka beri maqan tahay taasi intay xaqiiqo ka noqonayso ganacsigu waa iska sii socdaa halka maxaa ka soo baxayadana waxaa ka soo baxayo ka hor imaanaysa xadiidka nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam xalaal ma aha ribxu ma lam yadman ama yudman ruuxu wuxuu san damaanin oo weli milkigiisa soo galin oo uusan riskigiisa lahayn nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam in laga faa'iido ma banaana marka doonayso inaad safqo kale ku gasho faa'iido kale ka sii raadiso waa markay ku soo gasho oo ay xaqiiqo noqoto oo ayna nambaro uun ka socdo meesha ayna ahayn xaqiiqo ay noqoto markaasaad mucaamalo kale ku sii geli kartaa faa'iidana ka raadin kartaa waxay la mid tahay oo kale maalan haddaan tusaale ka dhow idin sheego maalan waxay noqon kartaa badeecad iibis badeecad soo iibsatay badeecadii markaad soo iibsatay gacantaada weli ma soo gelin ciddii aad ka iibsatay bay weli gacantiisa ku jirtaa riski iyo khatari hadday ku timaadana adig kuma soo gaadhaysa ciddii bay gaadhaysaa badeecada noocaas oo kale weli aan soo gelin damaanadaada waad sugi ilaa ay ku soo gaadho markaasaad sii iibin kartaa ribix iyo faa'iido ka heli kartaa laakiin ayadoon weli ku soo gaadhin oon damaanadaada soo gelin haddaad sii iibisood ribix ka hesho waa xaaraan ya xadiiska nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam mucaamalaadka noocani marka iyadoon tii hore safqadii hore wixii laga faa'iiday iyadoon cadaanin ayaa kuwa kale lagu sii galaya halkaana waxa weeye ribxu ma lam yadman ama yudman baa iyadana ku jirto xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ayay iyaduna ka hor imaanaysaa suuqyada qaabka u mucaamalada طيب qodobka xigay wax weeyaan ee muxadaraadka sharciga ku jira waxa weeye lacagtaada waxay rahan u tahay oo loo haysanayaa baynu nidhi ya maxaa loo haysanaya khasaaraha la isaga ilaalinaya safqada iyo heshiiska aad gashayna waxa gacanta ku haynaya brokerka gacanta ku haynaya si uu khasaaraha isaga ilaaliyo labadooduba waa rahanta asalaha shariicada waa banaanta laakiin aqdi xaraan ah markay rahantu rahan u tahay waa xaraan halkaana tahriim sharciya ku jira safqadiina waa marhuuna waa rahan oo muxuu ahay wixii soo baxay iyo waxaagiina waa rahan lacagta dhiibatayna waa rahan ilaa shirkadu ay u cadaato inaan khasaara jirin kuma siin karto hadduu khasaara yimaadana xoolahaagu inay burburaan waa ayada Soomaha safe side bay jirtaa safe side bay jirtaayo mar walba wax soo gaari maayaan intaadan bay isku ilaalinaysa طيب ayadana waa dhinac kale waa inta marka laga yimaado jawaanibta ribada iyo mukhalafaadka sharciga isku jira ee aan sida kooban u sharaxnay marka laga yimaado suuqaas caalamiga ah ee sarifka ama badeecooyinka kale laga ganacsado wuxuu xambaarsan yahay khatar waaweyn oo ruuxa faa'iidadu raadinaya keligii aan ku khaas ahayn bal gaari kara mujtamacaadka dawladaha saameyn kara caalamka oo dhan halis ku abu suuq xambaarsan yahay aathar iyo raad halis u leeyahay culimaduna ka hadleen
ragga dhaqaalaha iqtisaadka ka hadlayna ay taabteen waxa kamida sidii sabab suuqani wuxuu ku dhisay wax la yiraahdo ihtimaal suurtagalnimo nooc muraahana iyo muqaamara ah ascaartan isbadbedelaysa ayuu ruuxu wax ka raadinaya korukac hoos u dhacaysa ayaduna si lama filaan ah baa sicirka sarifku isu bedelaya waatan hadda sheenayni ilbiriqsi ayuu isku badbedelaya waxa saameynaya duruuf siyaasadeed haday dhacdo way saameynaysa waa idinka arkay Mareykanka doorasho ka dhacaysa suuqi sarifka caalamiga ahaa waa hoobanaya Soomaa dawlad baa isbedelaysa halis khatareed baa timid mushkilad dhaqaale adduunka soo wajahday waxyaalo noocaas oo kaleeta aba saameyn ku leh bangiyadan baana ku ciyaaraya suuqa sidaas daraadeed markaaba waxa dhacaysa isbedel baa imaanaya isbedelkaasi marka halistee mufaaji'a wuxuu eegyahay khamaar buu eegyahay waxa dhici karta ilbiriqsi gudihii inaad cirka tagto ilbiriqsi gudihiina dhulka meehe inaad qabri gasho salka inaad tagto oo milyanaad intaad malaayiin geliso inaad waxba aad weydaa dhici karayso xoolaha iyo dhan baabaan waana sakana waa ilbiriqsi waxaad arkaysaa noocaas oo kala marka waxay leeyihiin mukhaataro iyo khatar u bareerid iyo nooc khamaaro halisa ku jiray leeyihiin waxay leeyihiin khubarada qaar kamida culimada iyo mutakhasisiinta baabkan ku takhasusay waxay leeyihiin dadka khasaaruhu u badan yahay inta badan xoolahoodu baaba'aan dadka tabarta yar ee waxoogaga yar ka gashada u badan oo waliba waxay leeyihiin 95% boqolkiiba 95 raasamaalkoodu waa baabaa shirkadaha yaraha iscelin kara oo maanta haday safqada ku khasaaraan midda berri iscelin karo ta berri waxoogaa soo kaban kara shirkadahaas waxoogaa badbaadi kara laakiin dadka yaryarka wax dhiibta boqolkiiba 95 waxay u badan xataa raasamaalka inay khasaaraan عكسي waxay u tahay wararka lagu sheegayo ee muxuu ahaay la faafinayo sida maadaama ay tahay ayaa shirkadaha in badan oo kamida page-kooda waxay ku qorayaan brokerada iyo shirkadaha u dhaxeeya suuq iyo dadka u dhaxeeya intooda badan waxay page-kooda ku qorayaan digniin bay qorayaan oo ay ku leeyihiin mucaamalaadka noocani halis waay khatar weyn baa ku jirta raasamaalkaaga khasaari karta يا إني روح كوسو هارين بعد كرت فإذا واكو جرتا هذا دو بدري سكالي قاربنا بيجي كودي بكو قرية مركو حكو جر الريسكي هي مخاطرة هلسة وحولها ذاتك خطر كوا خاصة ذاتك تطورت درا خطرت الله بعد يكون جرت وحوي إيش بتبدل كان سوقك كالسعودية العجاه لا يقنع سنة وحي هلس كويهين oo ay raad xun ku reebayaan badeecadaha iyo silaca suuqyada ee caadiga ah badeecadaha la kala gatay bin aadamku ku nool yahay sababtu maxay tahay laana suuqyadaasi lacaguhu isbadbedelayaan iyo sarafka isbedelaya ayaa wuxuu saameynayaa qiimaha lacagaha bedelkii lacagaha asalaha waxa loogu talagalay lacagta culimaduna waa ka hadleen muslimiinta lacagta asalaha looguma talagalin iyadoo inay ganacsi noqoto asalahan lacagta waxa loogu talagalay inay u dhaxayso badeecadaha inay miqyaas noqoto inay wasiid noqoto khadamaadka saafiska iyo khadamaadka iyo badeecadaha inay iyadu u dhaxayso oo mesela soo marabteed waxaad haysataa muxuu ahaay timir baad haysataa waxaad rabtaa inaad dahab soo gadato maxaad sameynay ma dahab iyo timir baad toos ugu gaday maxaad sameynay timirtaad gadi sooma kadib lacagti kaaga soo baxday waxaad ku raadin dahab baad ku gadanay saas daraadii lacaguhu waa wasiid waxa la kala bedelanayo inay u dhaxeeyaan baa lacaguhu loogu talagalay qiimahoodu marka inuu mustaqir noqdo sugnaado isbedel hadduu ku ibaanayo isbedel culus inuu san noqon tayib markay noqoto lacagti lafteedii in suuq weyn loo sameeysto oo lafteediiba laga ganacsado waxaa dhacay tadabdubka iyo jahwareerka ku dhacay lacagaha ayaa wuxuu keenayaa ascaartii iyo badeecada sicirkeedii iyo suuqa qiimihiisii inuu fadhiisan waayo in sicir barar ku bato
in hal mar sicirka yani badeecada suuqu hal mar intay boodo boqolkiiba 400 inay cirka isku sareeyo waxa keenaya suuqa lacagaha laga ganacsanaya keenaya halis weyn ayaa marka ku jirta oo yani wax weeye keenaya istiqraar la'aanta bini aadamka hadda adduunka ku nool badeecadiisu inay wareerto sicirku kaco lagu wareero noloshu adkaato suuqyada la sameeyay baa qayb ka waxa kamida khataraha ku jira mashaariic fara badan oo intaaji ah oo wax soo saar ah inay istaagto mashaariicdii beeraha mashaariicdii kale ganacsiga mashaariicdii مثلا warshadaha mashaariicdii badeecada la taaban kare nolosha bini aadamku ku fadhiday baa qarka u istaagay inay istaagaan say ku imaanaysaa waa laana wax weeye aniga hadaan heli karaano meeshan iska fadhiya gurigeyga iska fadhiya badeel la qaadanin beerna falin orodna gelin Hong Kong iyo China na aadin badeecana iyo containerna isku rafaadinin hadaan heli karo intaan account furto oo qolada u dhiibto bishiina aan sugo muxuu ahaay waxoogaa kuusa hadaan heli karo ma beer baan fali war ma beer baan fali mise container baan ku rafaadi oo takhliiskiisa iyo meeshan la ereeriyani mise maryaan soo tultuli wixii dhow istaagaya maxay u istaagayaan waxa istaajinaya suuqyadaasi markay noqoto inta la galo lacagii xagga in la geliyo lacagtii halkan gali lahayd ee nolosha hormarin lahayd halkaas ay gashay noloshii waa istaagaysaa marka tacadul badan baa galay mashaariicdii intaajiga ah ee horumarka keeni lahaa oo dhan baa khatar galaya waana mid culimadu tilmaamayaan khatarta markay galaana waxa ka dhalanaya noloshii bini aadamku inay kululaato shaqadii inay yaraato lacagtan $100,000 ah hadaad guriyo gelin lahayd ama beero gelin lahayd ama ganacsi gelin lahayd dad badan baa ku shaqayn lahaa sooma dad badan oo shaqaalaha baad qaadi lahayd oo wax ka heli lahaa laakiin $100,000 ee halka la geliyay ni wax ka helaya male halkii milyaneen haysan halkaas la geliyay shaqaale male shaqaale aan bay dad ku soo dhacay mashaariicdii intaajiga ee ummadda anfici lahayd istaag bay qarka u istaageen waxa soo dhan waxa keenaya sarifka halkaas laga ganacsanayo ee faa'iidada degdega iyo taajirnimada degdega laga raadinayo waxa qodob afraad oo halisaha ku jira kamida xoolihii iyo lacagihii ummaddu lahaayeen ayaa waxay gacanta u galayaan koox yar oo waliba gaalo cadow ah say ku dhacaysa suuqa yaa haystaynu nidhi soomaalina soo sharxay yaa haysta waxa haysta bangiyada waaweyn ee ra'iisiga ah ee dawladaha waaweyn ay leeyihiin kuwan yarka xataa ma suuqyada ayaga gacanta ku hayay markay lacagteeni oo dhan suuqyada gasho oo dollar noqoto maraykan bangiyadiisuna ay gacanta ku dhigaan oo ku ciyaaraan maxaa dhacay maraykan ma dad budan u haya waxay bilaabayaan inay mujtamacay doonaan dumiyaan dawladday doonaan dumiyaan lacagaha ku ciyaaraan say doonaan ka yeelaan wixii oo dhan uu lacagtoodii noqdo u fiirsada lacagaha la kala sarifayo miisaanka lacagta loo noqdo kulli miqyaaska u ah waa lacagtee way waa dollarka Soomaaliya saas daraadeed waxa ku jira yiraahdaan culimadu khatarta ugu weynna ah waxa loo yaqaan dawlaratul aalam dawlaratul aalam caalamka dhanba in la doolareeyo oo dollar laga dhigo طيب hantidii ummadda markaynu halka ku shubno laguna ciyaaro sidii doonana laga yeelo nolosheeni ummada kala gacanta ku hay xoolaheeni ummada kala gacanta ku hay ummad ku naxaysama ummad ku naxariisanaysa ma ummad ka danqanaysa ma waa ummad doonaysa inaad burburtaba ka macaashto waa taa markaad u gacan gashiyo bangiyadeeda maxaad sugaysaa adiga markaa soo khatar weyn ma waxa kamida hazaadka waaweyn ee dhaqaalaha adduunka ku dhacay muxuu ku yimaadaa dhul gariirka waaweyn ee dhaqaalaha adduunka ku dhacay seebuu ku yimaadaa wuxuu ka yimaadaa suuqyadaas ka yimaadaa Soomaaliland maqal meel inagoo taagtaagan oo Kenya hadda Nairobi iska fadhfadhina hal mar waxa dhacaysa batroolkii baa kacay
batroolkii baa kacaya badeecadii baa kacaysa war balaayadana maamulanaysa muxuu jinka noo talinaya muxuu ma garanayno sooma laakiin xaqiiqadu wax weeyaan khataraha waa danbaana laga leeyahay waa wax la sameeyo waa wax inta badan bangiyadaas iyo dawladahaasi ay sameeyaan waxa loo yaqaano caydowga iyo khatarta dhaqaale adduunka soo wajahaysa kolba la galaya mawjadaha aan kala duwaneyn bangiyada iyo suuqyadaas ka khaasatan suuqan muxuu ahay stock muxuu ahay waxaan dhahan muxuu ahay exchange-ga ayaa inta badan ka yimaada laana lacagii adduunka intooda badan iyaga ahay soomaynaan sheegin maalinkii maxay kala rogaan taqriiban 5 ilaa 6 trilyan bay kala rogaan lacagtooda iyaga ahayba say doonaan bay markaa yeelayaan waa khatar waa ummadii oo gaalo loo gacan geliyo balaayo u gacan gashay sidii la doono laga yeelay hantideedii la qaatay khatar baan ku jirnaa marka halistaasina way muuqataa oo culimadu waa tilmaamaya marka la soo gabagabeeyay waxa waaye mas'aladaasi suuqaasi internetka sarifka ka socda suuqa boorsada caalamiga ka socda in laga qayb galay wax lagu darsaday mafsada caamana waa leeyahay oo ummadda soo wada gaadhays mid khaas ah oo ruuxi ku dhacaysana waa leeyahay shariicadeeduna waxay leedahay oo nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam la darara wala dirar yani wax way wixii darar ah siisa waa madfuuc khaasatan markuu dararku ummadda wada gaadhayo halis ku yahay marka waa ka sii daran shariicadu waa ka hortagaysa xoolaheedu markay gaala u gacan galayso waa ka hortagaysa markii cadawgeedu uu doonayo inuu gacanta ku dhigo ku tasarrufo waa ka hortagaysa fataawida marka waxa weeye taqriiban muxuu ahay masaladaasi ku saabsani iyo halista ay culimadu ka muujinayaan taa iyada weeye waan soo koobnay laakiin waxa ku jira halisa kale oo farbadan dadka xoolahoodii bilaash lagu cunayo ayaa ku jirta yani wax weeye waxaad ka fiirin kartaan masalada iyada buxuud farbadan oo laga qoray laana wax weeye muxuu ahaayay ilaa taqriiban 20 sano tagtayba waa laga hadlayay oo waxba laga qoray masaladan iyada waxaan ku gabagabaynayaa shirkadaha qaarkood markii ay brokerada qaarkood markay ogaadeen dad badan oo xoolo haysta oo muslimiin ah mucaamalaadka ribadana aan rabin mukhalafaadka sharcigana aan rabin si waxooga ay kuwa ay uga faa'iideystaan oo dabka uga shitaan ayaa waxay soo saareen wax la yiraahdo الفوركس الإسلامي إسلاميك فوركس واحد اللي سو صار سؤال سويدي تلا واحد أمريكا ما تشرا سيد هذا بقول يرادن إسلاميك بنك سمعت بنك إسلامية طيب فوركس إسلامية ما تشرا سؤال جواب تيد واحد مريكن كي الدولة ده هو وين إن يجا معمول السوق يدن ما جرى بنكيادو بنك إسلامية ما جرى ما جرى شروع ذا أطلس السوق يدا يا دشيء يا دشيء مسلم شريعتين يكوسلية ما سيداس دراد ده دوح اللي هذا فوركس إسلامية جرى وحيالها قار كود بالغيا بمحاذير تقار كود إنه كتك تجان لكن ولي محاذير كلي دحفر ديان waxaana kuugu filanba suuqani suuq islaami ka socon kara ma saas daradeed ba culimada muslimiintu waxay ku talinayaan muslimiintu intay iskaashadaan dawladahooda iyo shirkadahooda iyo bangiyadoodu suuq caalami ah oo shuruucda islaamka lagu saleeyay oo kan ka duwan ha samaystaan sooma laakiin wax weey waqtiga ma cuno fuudkiisana waa cabbi meeshan aan islaami ka dhex raadini dadka maangaabka baa lagu siraa dadka aan inta badan masaa'ishani ayna u baxsanayn way ka dayrinayaan marka culimada in badan oo kamid ah waxay leeyihiin wax la islaamiyeyn karo masaladu waa ka weyn tahay waa Mareykan oo la islaamiyeeyay iyo Yurub oo la islaamiyeeyay waxaas waa wax dadka lagu shabakad iyo wax weeyaan dabin dadka loo dhiganayo oo dadka inta badan qulubtooda iimaanka iyo riba ka cararku uu ku jiro waxoogaa lagu soo jiidanayo waa mas'aladana waxa dhihi lahaa ha ku kadsoomina intaasi aan ku soo gabagabeeyay insha Allah ta'ala kalimadii oo si kooban oo urursan oo waliba hadaan carabi iyo hadalada laga yiri carabi ku akhrin lahaa waxoogaa waa dheeraan lahayd waan Soomaaliyeey kulli waxa laga yaabaa inay dadka qaar ku yiraahdaan waa caawo wadaadku Soomaali uu nagu daldalay ayad quraan iyo xadiis iyo ma aawi tama Soomaali baa diin noqonahay
مسألة مركا لقاها الله يليها وحصي شريعة كو خلاف سنتهي وحي كو خلاف سنتهي نص بولي مركا النص كي أي كو خلاف سنين سيد دبق الله وحن كجسو قاب سني إن تلمانو مخالفة داسا كو جرت مخالفة اللوات باكو جرت مصدحات باكو جرت مخالفات كاسي محي شريعة كقبتاي أدلة ديدو وتفاصيل زيادة أوي وحن كو قبقبين يا مراجع ده مهم سن بحوث فربضان بان كأخريه لكن مجمع الفقه الإسلامي ورابطة الرحسن dowradiisa 18 oo maka lagu qabtay oo dhacday 1427 hijriga waafaqsan 2006 meeqa sana ka soo wareeg 12 sano soo ma مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء صان دين شيخ عالم إسلامي ونكتي مادة واجاس بحوث لقى سوديارية بالله كيني فتوى كسو صارين جماعية فتوى ذي قار كم ذا وحياليه أي شيئين هريبان الشيء وهذا الله من كرتان أيضا وح كم ذا سيدو كله هي أدوية أيضا هيئات كهذا بقالها معاصر كوحكة قرطة وأيضا تقريبا دورية طبنين وباحث اقتصادي عالم شرعي يسوق الشرع أيها كل حجرة وهي اللي يلاحظوا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معايير الشرع جالس كله يجونا سيدو كله ويكهلن وين ديدين بحوث فربضان وعلماء عن هو باب كان عام كوا متخصصين كوا سيدو كله يقرين أو كم دي مثلا نينك عام كعالم الدكتور الأستاذ علي أحمد السالوس ونينك إسكال كتاب كله هذا موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي نعوذ بيوقعها وحلو يقانو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا كحيجين بوكاها مر ومصري وحكم إذا نينك يسوون سيدو كله كحيجين كيساها هذنا هيستوى أولي هذا محمد محي الدين القرداغي ونينك إسكاله كتابته بحوث دورية طبعا كمجلد اللي هذا حقيبة طالب العلم الاقتصادية دورية طبعا مجلد وهي كتاب موسوعة هرنا وهي السجن وكهلي وحكم إذا الشيخ محمد الصالح المنجد وحكم المتاجر في المعاملات بنظام الهامش وحكم إذا الدكتور عبد العزيز الفوزان حكم إذا الشيخ عدنان عبد القادر وحكم إذا الرقب بحوث تكقر بحث قيمة بدن كقري لمن إنه دكاترة ويجنا وداجي نلي إلى دوائل محمد عربيات وكلية الشريعة جامعة الأردن الجامعة الأردنية كمعلم إن إلى أحمد عبد الله العون ويسجن باحثة بحث قاس يسجن وكوتشرا إنترنت كوتشرا بحوث فربضن وأون أنت يعني وحويان أنكسو قاضي مويه لكن بحوث هذا فربضن بك أخريه خلاصة وأنت الدين سوكوبي لما نكوبي كرعلمة كهذا الشيء ويجران كوسي ضوب أي لوي بنانته لكن تفاصيل لوقا الكرمين بحنين تفاصيل لوقا الكرمين بحنين مثل كله شبهات كودات بالله دبقله لوجا جوابي حضر وقت وما هي وقت قبل دراضي إن نسيت دبقله يعني إشكالاتك شبهاتك يو اعتراضاتك يجوابها لك بحيي لكن خلاصة الموضوع وكا وحالي لا ما كسو قبقبين لها ماشاسي وميل هلسة سي عامي سي خاصة بهلسوها كنعسي كيدا إن فايدة لك الرادينا وحشر عدكو بنان ماها مركا ليسك إلى اليوم نينكي كوتشرين هكبح هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير